وما حسنتاي حنان أو إمينكا فديسا استوديوها أن كلنا هاي مقالة لندن دالك إنجليزكا داوديال كسو دوادا برامج gaarahay oo ingu talagalnay dibudhiska dalka sidee dalka dibudhis loogu sameey karaa waxa caawa marti sharaf iigu ahi stuudiyaha aan ku leenahay TV-ga qaranka Soomaaliyeed xubno ka tirsan shirkadaha Carta iyo Global Bean labadan shirkadood oo ku bahoobay iyo maalgashadayaal ku bahoobay dalada Shangees ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ka hirgelinayaan xaafad loogu magac daray Carta waxaa dhinacayga fadhiyo Faaduma Maxamuud Qaali oo ay xoghaynta shirkadda Carta iyo waliba Cabdiraxmaan Cali Qayre oo asaguna ay xiriiryaha shirkadda Carta iyo waliba injineer Saciid Nuur Geesod oo ay wakiilka shirkadda Global Bean dhamaantiin ku soo dhawaada telefishinka qaranka Soomaaliyeed stuudiyiisa magaalada Oslo su'aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa Cabdiraxmaan Cali Qayre ugu horeyn bal warbixin kooban ma naga sii kartaa mashruucan dhismaha xaafadda Carta xagee laga dhisayaa maxay tahay sababta soo beegantay xilligan waqtigan in laga dhiso magaalada Muqdisho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مهدلة رنت وحن روائنا أمهد عليو تلفزيون كقرن كصوماليات وقول مهمة وهي برشة الصوماليات كاسو هبين يمارن بوتاجن لرجالين تيجي كقيب قاعد الشدة دي بلوس كدلك آدم وفرح صناعي مطلبات نوعدين مهد علينا مركز مصور لابد سؤال شيء أدويتي سي أو حافظ عرت وحافظ عصرية واللي يرجلنا يو مقالة المقدشو كارهان دقمة دايما حافظاسو باهيدو waxay ku dhalatay ayadoo barihi ugu dambeeyay alxamdulillah nabadgelyada dalka ay soo hagaagaysa ayaa dad badan oo qurba jooga dalkii dib ugu laabtay taasoo caruurihii iyo meesha markay ay tageenna ay la qabsan waayeen qaabka ka jira magaalada ama looga nool yahay qurba joogtaas runtii waxay fikireen in ay helaan standardka hadda ay uga nool yihiin dhulalka ay ku nool yihiin nolol lamid ah inay u abuuraan ilmahooda si aysan ugu hiloobin dalal kale oo dalkooda ay u jeclaadaan taas baahidaasa keentay in la abuuro xaafadda Carte runtii xaafadda Carte waxay leedahay wax kasta oo laga heli karo dalal ajnabiga run ahaantii midda labaad markaan aragnay in dadkii ay dhulal kale oo aan dhulkeena ahayn oo guriga hadhow aan la rari karin inay gelinayaan hanti tiro badan inay dhulkooda ay geliyaan barnaamijyadaas quruxda badan oo dalal kale ay ku samaynayaan runtii waa guul iyo sharaf ay u tahay shirkadaha Carta Company iyo Global Bean runtii iyo guud ahaan maalgashadayaasha Soomaalida iyo ajnabiga ah isku tagooda la isku yiraahdo Shangees insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in guryo casri ah oo leh xag ka dhisan xag mataqaanaa hawo fiican leh caafimaadka ku wanaagsan nadaafadooda ay heer sare tahay inaan ka hirgelino daynayno insha Allah waana la gaari doonaa waqti dhow assalaamu calaykum waa mahadsantahay haddana waxaan iyaduna su'aashan aan weydiinayaa Faaduma maxaad isleedahay xaafadani way ku kordhi kartaa dib u dhiska dalka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa stuudiyaha magaalada Oslo SNTV iyo meel kasta oo ku jooga adduunka markaan soo noqdo su'aasha ay weydiisay aan boore waxaan ku leeyahay mahadsantahay adigana waxay horta u sameynaysaa shaqo abuuris aad iyo aad u baaxad weyn gobolka Banaadir marka la yiraahdo intaas ayaa dhismo iyo
aad ayaa umahadsantahay Faaduma adiguna haddana waxa asaguna garabkii fadhiyo injineerkii oo asaguna ka socdo shirkadda Global engineer su'aashan ku weydiinayo maxay ugu duwan tahay xaafadani dhismayaashii hore maaragtay dalka ka jiray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ana bor aad iyo aad baa mahadsantahay waan ku salaamayaa adiga iyo dadka kale ee Fahad TV ka shaqeysa aad baan ugu mahadcelinaynaa fursadda qaaliga siiseen Arta company isku tagtay iyo Global Beam Construction. haddaan su'aashaada u soo noqdo maxay ugu duwan tahay dhismayaashan la dhisay maanta Arta project waxay ugu duwan tahay kow qofka joogto waxaynu siinaynaa fikrad cusub waxaynu siinaynaa standardka ku noolaayeen kula mid inay helaan waxaynu siinaynaa guryahoodu standardka ay dignaayeen inay noqoto muqdisho ay ku helaan kow cimiladii laba waxyaalo badan weeye waxaan kaloo aan dhismahan ugu duwan yahay qofka maanta xaafadda ka mid noqonaya inuu helo marka ugu dambeysa isagoo xaafadda markuu iibsado uu heli doono iPad ay ka mid tahay aragtidii oo dhan xaafadda oo dhan dhismayaasha aan kusoo biirinaynaa inay noqoto dhismo standardkiisu aad u sareeyo aan ku xisaabinay aan ku dhisnay hadday noqoto tayadooda aad u fiican tahay مثلا هذا قرقي جبو يماركت إن ماركتي عاد garanti aad siinaysaan sidee qaab nooca bal ma noo sharxi kartaa ma baasata aan bare waxaan horta aan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa Arta team iyo Global Beam isku tagtay inay muqdisho horta ay xafiiskoodu noqon doono dhismaha badanna ay ka bilaabi doonaan Arta xaafadan waa xaafada anaga mas'uuliyaddeeda qaadayna 5 sano u soo horeysa hadduu gurigaasi uu dilaaco in anaga daban qaadayno sababta aan ku sheegayaa dalka Noor horta markaan ka shaqeyno waxa uga shaqeynaa tayada gurigu imsay sii jiri kartaa kontonka soo socda inaan dabin qaadi karno 20 sano soo socda inaan dabin qaadi karno waa systemka Noor aan u shaqeyno systemka Soomaaliya aan uga shaqeynayno waxa weeye maadaama aan xisaabinayno horta cilada ku dhaxaysa naqaska dhulka soo baxaya dilaaca sidee loogu hortagi karaa dilaaca waa xisaabaad aan xisaabinay aan tayadeeda aan eegano guriga sidoo uu joogsan lahaa dilaaciisu aan ugu talagalnay dabcan waynu ognahay waxaan ku hadlayno waynu garanaynaa waxaan damiina qaadaynaa 5 sano u soo horeysa gurigaas hadduu dilaaco in aan ku bixinayno amba Arta noqoto amba aan noqoto meelaha kale magaalada Muqdisho in ka dhisayno private ahaan hadday noqoto damiinteena anaga qaadayno su'aasha kale waxaan weydiinayaa Cabdiraxmaan Cali Khayre Cabdiraxmaan qaab intee ayaad u dejiseen Soomaalidu waxa jirta dalkii degan ayaguna oo dalka ku sugan rabana arrintan oo kale iyo dad dibadaha qurba joogga Soomaaliyeed ayaguna qurbaha joogo oo rabaan ayaguna dalka inay u noqdaan sidee qaab noocee ah bal dadkaas u kala sameynaysan wax faahfaahin ma nagsi kartaa bismillahir rahmaanir rahiim runtii shirkadda Shankees macaamiisheeda waxay ugu tala gashay website qofka uu iska diiwaan geliyo runtii iyada waxyaabo badan ay eegayso dadka degaya xitaa cid kasta oo Soomaaliya oo muwaadin ah waa u furan tahay horta inay degi karto runtii xaafadan laakiin si loo ilaaliyo ammaanka iyo nabadgelyada iyo waqtiga xun darteed shirkaddu ma ahan inay cid kasta ay leedahay kusoo dhawow way iska soo deg runtii kala doorasho way jiraysaa dabcan cid kasta oo Soomaaliya ama Muqdisho ha deganaato ama meel kale oo dalka kamid ha deganaato ama qurbaha ha deganaatee oo awood u leh dhaqaale isla markaasna ah qof la qabsan kara ama la noolaan kara bulshada kale oo meesha degan Arta company iyo Global iyo Shankees kusoo dhaweynaysaa هذا يا mahadsantahay Cabdiraxmaan Cali Khayre iminkana ayaan su'aasha kale waxaan weydiinayaa Faadimo su'aashan ku weydiinaya waxay tahay barnaamijka oo qurbaha waxaan dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaad waxa jiro oo ayagu dalalkan u guuro ama Masar ha ilaa Syria meelaha dad baa u guuro dadka Soomaaliyeed oo maaragtay rabaan arrintan oo xaafada inay ka dhistaan qurbaha joogana maxaad ayaguna wax tala oo aad siilahayd ma jiro bismillaahir rahmaanir rahiim
soo dhaweeyay waddanka dibaddana ay ku faraxsan yihiin waxaan rajaynaynaa inay ka fiicnaa doonto inay masar u guuraan iyo inay kenya u guuraan intaba faamilada degan yurub iyo north america waxay dalbadooda noogu soo badanayaan si aan la qiyaasi karin ayagoo ku faraxsan inay dalkii ay helaan dhismo standard ah oo la mid ah kuwa yurub iyo north america ay ku degan yihiin oo kale dhismooyin noocaas oo casri ah wayna ku faraxsan yihiin inay dalkoodii ka arkaan waxyaaba sidaas dadka ilmaha inta wadeen geeyeen soomaaliya oo kaleetood oo ay la qabsan waayeen oo dib u soo celiyeen dhibaatooyinka ay ku hayso iyo dhaqaale burburka ay ku haysana waan dareemi karnaa oo annagaaba ka mid ah dad ilmahoodii geeya dib u soo celiyay waxaan ku faraxsannahay 100% faamilo badan ay ku farxi doonaan haddana qaar badan ay ku faraxsan yihiin in waddanka laga dhiso standard Yurub iyo North America sida looga nool yahay u dhigmo su-aasha kale waxaan weydiinayaa injineer Saciid Faadimo waxay dhahday ama ka hirsiisay in maaragtay ay bilaabanayso January dhismaha carta ka bani ilaa waqtigo uu soconaya bismillahir rahmaanir rahiim aad baan u santaan boode waxaan salaamayaa teamkeen nala shaqeeya xagga seelka dhaka London haday noqoto teamka kale hadda Canada nooga shaqeeya Toronto magaalada Toronto iyo teamkeena kale Soomaaliya nala shaqeeya xagga seelka geesiga nooga shaqeeya su'aashaada hadaan u soo laabmo horta project waa project aad u weyn waa project balaaran ka kooban 60 guri 60 ka guri waliba si kala ah saddex nashqado oo kala duwan ay sii leedahay iskoolkii ay sii leedahay labaadkii goobaha ganacsiga ay sii leedahay meelihii dadku u ciyaareen meelihii dadka ku leeysaneen waxa fadhata iska idin oo wax kasta ay u leeyihiin dabcan marka la eegana in project aad balaaran ismuhu wuxuu bilaamayaa dhagxdigiisu wuxuu bilaamayaa bisha January uu bilaabi doonaa oo waliba si magaalada Muqdisho wuxuuna socon doonaa project-kani almost 2 sano socon doonaa labadaas sano waxaan ku talagalnay inay baahida dhismaha xaafadda loo buuxiso insha Allah waa mahadsan tahay injineer Saciid sida wanaagsan aad su-aasha nooga jawaabtay su-aasha kale aan ku weydiinayo Cabdiraxmaan waxay tahay waxaad sheegteen inaad Daynile aad ka dhisaysaan ama gaar ahaan magaalada Muqdisho meelo kale aad qorsheyseen ma jiraan aad projectigan aad ka dhisaysaan ماشي ووجه كواد وايه عرتا وجه كواد يرجلنيسو وحافظة اللي عرتا فلاج وحاجة كوبان تاي 3 واحد وواحد كستا يقو كوبان تاي 6 قري ودير وريكسان له وسيدا انجينير كشاقي وحوال بيرو ليهين مركوا كواد يلا بعد يسدحات وحاك كالي عرتا كيمبني جلوبال بين iyo maxay dhamaan shirkadda Shingees ay ka hirgelinayaan magaalada Muqdisho xaafadda Kaaraan iyo Liido kabacdi haddii alla idmo dalka Soomaaliya oo dhan ama qaybo badan oo noo calaamaysan way jiraan laakiin waa gaaraynaa dalka oo dhan insha Allah aad ayaa u mahadsantihiin gabagabadii barnaamijka maxaad ummadda Soomaaliyeed u sheegi lahaydeen waxaan weydiinayaa Faadimo aad ayaa u mahadsantahay waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inay ka faa'iideystaan fursaddan qaaliga ah oo ah waddankaagii oo lagu dhisay ee lagu diyaariyay intaad lacag meel aadan ogeyn ku shuban lahaydna meel aad ogtaa ku shubatay dalkii oo dalkaaga ah dib u dhiskii ood ka qayb galaysid deegaankii oo qurux u yeelaysid ilmahaaga oo dalkii qiimaha uu leeyahay sidaas ku baranayaan waxyaabo badan oo dadka dibadda joogo ay u baahan yihiin ayaa meesha laga samaynayaa insha Allah marka waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena aan wadno insha Allah waxaan rajaynayaa in idinkana sida aad rabtiin ugu bogadoontiin aniguna wax mid baan ku dirsan lahaa waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegi lahaa haddii aad ka mid noqotid inaad xaafadan dadka deganaa aad noqotidba shirkad ahaan waxaan ku ballan qaadaynaa ku fududeynaa inaad 3D format heshid ay ka kooban tahay xaafad
adigana maxaad ku soo darsan lahayd runtii anigu waxaan dhihi lahaa dal aan dalkaad ahayn waa darin ku joog runtii dadka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa markii ay arkaan qof wax qabanaysa dalkoodii u dhisay dabcan waa inay horta u mahadceliyaan midda labaadna waa inay dhiiri geliyaan tan saddexaadna waa inuu qof walba uu isku dayo qofkii qashin meel ka qaadi karo qofkii guri qurxan dhigi kara laannahu dalkaada haddaadan dhisan cid ku dhismays marka dhammaanteenna si aan u helno dal qurxan caafimaad qaba nabadgelyo ah waayo wax walba waa isku xiran yihiin nabadgelyadu kama soo harta baahida qofka hadduu baahan yahay nabadgelyo darra waa imaanay wax walba caafimaad darra waa imaanay marka si shaqo loo helo si laysu kaashado aan dhammaanteenna ka qayb qaadano horumarka iyo dib u dhiska dalka waa idinku soo dhaweynaynaa dhammaantiin Carta Village aad u mahadsantahay aad ayaa u mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha iyo sida maaragtay aad telefishinkeena maaragtay stuudiyaheena magaalada Oslo aad nooga soo qayb gasheen barnaamijkan dib u dhiska dalka tan iyo mar kale anigoo Cusmaan Xaashi Kaariye Caan Bore ayaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo